mustaqbalkaaga daha mustaqbal afturku waxaa lagu dhahay Gelecekte. gelecek ay Allah geleceğimi unuttum almazla qurbo markii la dhahay waa taqaanaa adiga waa soo martay qurbo dhan walba mugdiye ka tahay dabeecadaada iftiinkaaga dhigayso inaa markaas dadka isku dartid inaa dadka la macaamishid inaa dadka yacni aadan hore markaas oo kale aan kala dagaalin waxyaabaha qaarkood sabir badan aa looga baahan yahay qofka marka wadanka markaa imaanaya shaqo ma kaseen shaqo weligay ma soo shaqeynin shaqada turkiga qofka yaqaano luuqada ma kaseysid maanta xaafadda haddaa kasoo baxid wadadii way adag tahay caawsaa ku celisid qof maanta inta kusoo wado shaqadii ku geynayso haddana kaawadaysa guriga ku geynaysa ma lahan wadanka hooyo ma ahan qof walbaba ceeshkeedii uu ordee marka qurbaha kow marka la imaado qurbo marka tanaa la dhahaa aniga Ethiopia markaa ku noolaa eedadayaa la joogay familkiyaa la joogay iikiyaa meesha iiga horeeyeen qurbo ma soo arkin laakiin qurbaha dhabta intaa ku arkay salaamu calaykum magacayga waa Hana Cabdiqaadir Maxamuud ku magac dheer Hani Baako soo dhawaada asxaabta Faaduma ku xiran qofkaanne oo dhinacayga midig fadhiyo xaajigayga Selamünaleyküm. İsmim Alparslan Ünal. Fatma'ya hoş geldin diyoruz. Evimize şeref verdi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Su-aasha koowaad waxaa waaye Hana Baako caqabadaha la kulmanta maxaa waaye arooskeena horta guurka ajaanibka marka la dhaho dhankeena waxyaabaha oo ku cusub ama trendka ku ah ma sanadahan dambe inkastoo ay ku soo badanayaan caqabo badana iiga imaatay aniga waxaan guursaday 2016kii waxaa ku dhahay maasha Allah caqabo ziyaada iiga imaatay laakiin haddana waa ka gudbay caqabadahaas ma sheegi kartaa Hana Baako maxaa kamid ah dhinaca familka dhinaca مجاهد النجم سيسيس أول أولورما قال بردا بك أي سوري أني رال بردا أوينا النجم تلفون فيري ما بانسنا تلفون أشكم تلفون فيردا كوجا أي مشي سيسيس لك ألصق مع جوا واحد يسوق حبيبتي مجاهد السعود كذا يوريريو ينو مجاهد كوجا أي مشي Mücahit bak maşa kocayı. Diyor. ماشي كوجا أي Orada mıydı? ها ألاني أرد أطرما أري أطر Otur. Ha. أطر Şöyle. هاي بردا أطر هاي بردا أطر مجا Şuraya شت otur. بريا أطر تمام زمان جن اللهم يا صبر عقبضة يقول دنك take breath it's okay xoogaa heejaan yaa biyurmaan caqabadaha iigu horeysay horta waxay iiga imaatay dhanka shacabka waalidkayga qaralaa siiyo aabahay hooyaday markaa usoo bandhigay aan dhahay waxaan rabaa nin ajaanib inaan guursado see u aragtiin xiriirkaasaa leeyahay oo maxaad ka leedihiin markaa familka dhaha aan u sheegay aabahay tan koowaad oo weydiiyey waxaa waaye nin muslin ma yahay ma dugtaa ma soomaa hadduu intaas yahay aniga wuxuu yiri wax problema ka qabo ma lahan way gursan kartaa dadka oo saaxiibaday asxaabtay way dhaheen way jiraan yacni marka hore intaadan guursanin haddaad yacni aad ku fikiraysid guur ma sahlano haniyey ka fikir marka hore ma ha ku degdegin waa lii dhahay way dhaheen laakiin dadka shacabka caay ninkan oo kaaweyn maxaa guursanay nin Soomaali ma weysay hadaa nin ajaanib waaba guursatay nin weyn maxaa guursanay wiil yar maxaa guursawayso kale haye maxaad horta nin ajaanib ku fashay maxaad u guursanay calafka aniga ma haayo aniga iskuma doorin calafka xag rabbiye ka qoran tahay dadkeena waxa ay ka dhaadhacsiin waa taas marka hore calafka yacni anigoo ii sheeg oo rabo aniga dadka waxaa dhanka cunsurnimada u badan oo gabdhaha ajaanibka guursanaya bataata ma ogolaan jirin nin ajaanib la guursanayo iyo gabar Soomaali is guursanaya bataata ma ogolaan jirin waa ka soo horjeedi jira wallahi yani
xataa waxaa jirta nin u shaqayn jira oo dhihi jira asagana nin turkiga kugu darahani adiga meel ma aadaysid never aniga ajaanib ma guursanaya saasaa dhihi jira marka subxaan allah ugu dambeyntiina yani aniga waa iska hadli jiray yani run ahaantiina markaa hadlayay waxay iga ahayd dhab oo nin ajaaniba hal habeen ma ku fikira inaan guursado calafkeygii oo noqdo ugu dambeyn alxamdulilah caqabadahaas maahane waxyaabo kale ma arkin alxamdulilah. Bizim ailede hiç herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani Allah'a şükür. Zaten normal şartlarda bir Müslüman bizde zaten yabancı olmaz yani normal şartlarda. Yani Tabii. yabancı dediğimiz zaman biz kime yabancı diyoruz? Müslüman olmayana deriz yani. Bizim için yabancı odur. Bizim ailedeki herkesin bakışı böyledir. Tabii şu anda insanlar böyle düşünmüyor belki ama bizim ailede çok şükür hiç öyle bir şey cahil kimse yok yani. maya Ethiopia qurbo yani laakiin qurbo la dhahay Ethiopia eedaan la joogay laakiin qurbo waxaa la dhihi karaa mataqaanaa hadda Turkiya markaa imaanayo kale qof bini aadan aa ka kasaya ma lahayn subxaanallah gabar aa wiilkii i keenay wadankan gabaroo igu xiray wuxuu yiri dabeecadaada dadka iidaa kugu xirayso iidaana kaa fogeynayso gabadhaas ama lama caamil ama kasii guur adeeg kuu taala wadanka haddaa beri isfahantid ama gabadhii oo ii keeyey gabadhaas mana ka siinin meeshaasay nolosheeda kasoo bilaabatay horta alxamdulilah horta wax walbaba labada dhinacbo kheyr iyo sharbo ilaaha keeno waa lagu waxaa la alxamdulilah dhehena caqabado badan la kulmay caqabado badan la kulmay markaa imaanayay oo waxaa ku dhahay hadda kow iyo labo wallaahi intaasaa ka sheegi karaa kadib nolosheedii dambe wixii aan soo maray dhan way iga tirtirtay mideeda kalene waxaa waaye anigoo wadankii fahmay oo wadankii ku dhiiranaaday aa lugaheeyo ku istaagay oo waxaa ku dhaha nolosheedii ay ii toosan tahay aan isbaran xaajigayga nolosha marka caqabado badanaa la kulmay aniga intaa isguursan ka hor xaajigayga waa ku xanuunsada isbitaalaan ku galay qof da-yaraa ahaa hooyo aabba iima joogin gabaraan isku guri ceesh walaal naga dhigay laakiin maasha allah gabadhaasaa waxyaabo badan dulduleelo badan ma aragtay ee iga dabooshay hadday iida ahaan lahayn dhibaato badan aan mari lahaa laakiin alxamdulilah yani marka alxamdulilah kadib nolosheedu way isbedeshay waa guursaday haddaa guursaday anigiyo luuqadii adiga xoogaa yaraa ka saaya xoogaa yar markaa idin dhahna ilaa yani dadka aan fahmi karo bulshada aa ku dhaqan bulshada wadanka ku nool inaa fahmi kartid aa fiican luuqada tan koowaad taasay kaa saaciday alxamdulilah nolosheedu way isbedeshay nin ijecelaa helay alxamdulilah ilahi wuxuu igu irsaaqay awlaada igu irsaaqay waxyaabihii igu dhibka badnaa qurbo ka soo maray tanaan ku hilmaamay alxamdulilah موقف مجرى أو إلوبي كريم مثلا أو كو كمان كمان تركيا موقف كحناقية كحناجي كوبر كمان سكريا مركاهي موقف كفرحية أنت نقولسن كور إن موقف إيجا فرحية ها كحناجي إيجا حناجي هورتا وحا إيجا حناجي وحا إهد نين قبرا إسلا دقنينا وحا إيجي سنين qaybtan boorsooyinka isla shaqeyno marka imaanaya xoogaa dabeecadeedu waa iska xumeedo waxaa ahaa gabar oodan weligeed oo waxaa iska la koolkoolin jira ahaa shaqo iyo waxaasba kasi jirin waxaa dhacday in nin la iigeeyo oo boorsooyinka oo macalin ah macalinkaa marka waxaa dhacday anoona filanayno dhexdayga qabsado si oo yacni lama filaan dhexdantayga qabsado canka iga shumay alla waa xanaaqa markaa dhaha maalintaas haddaa ka wagsiin karo wagsiin lahaa markaasaa waxaan dhahay afturkiga waxaa kasaa istamyorum yoq iyo olmaas aniga dhexda ma iga qabsan kartid olmaas aa leeya camanku kusa waxaa leeya cad waa gudgududana marka aniga soomaaliya nahne mana la qaqabsado istamyorum shianatyorda oo bitaana shantaji waariya bana shantaji biri waardiya bana bilmadim sartina shoolaya bishmish bi yanaan ubmushta biqizdim o zaman en çok kızan hangi konuydu çalıştığı yerde biz haddana waxaa leeyahay marabi
adiga marka dhexda ma nagala qabsado anaka Soomaali hadaan ma nolosha mi almost aniga istamyorom yani hali aan ka saay istamyorom iyo almost iyo malahan yok aan ka aqara marka ninkii af Soomaaliya ku caayna yok ale istamyorom hadale waxa raba sheega halka luqada dhaxgelina kadib gabadhii oo habeenkii ma sugin marka wadadaas meeshaas daa ka soo degtane wallahi meel aqaan ma jirto waa ka soo degtay shaqadii waxaana waa ka soo baxay gabadhii raadiyay marka gabadha oo isla degneen meeshii ka shaqeynaysay aan hal bil ka soo shaqeeyay laakiin subaxii la galaa shaqadan Turkiga habeenkii dhulka mugdi laga baxaa anigana xilliga imaado waxay qaboway dhulka si fiican kala ka saay meel wax yar jirta ileen jirta ani ma ogi wadada si fiican kala ka saabaan waxaan raacay doolmushka yani BL ka meesha aan calaameystay meeshaan kaga degayay oo igeey shaqada marka meeshaan kaga aadayay meeshaas oo igeey gabadhiya u tag waxa dhahay ninka ay geesna ciyaal suuq ahaayna wallahi ilaa hadda lacagteeda kama soo qaadan tan iigu farxadda badneedna waxay ahayd qalina meeshaan ku maray buro oo markaas weyn laga qalay bis markii la qalay haddana maalintii qaleen dhaqaatiirtu waxay leeyeen buradaada way weyn tahay kansar kaaga shakin jabaa laga qaaday waxay dheen 7 maalmood kadib waa qalanaya qalina la iga qaado burada waxay ugu dhaheen hadii 7 maalmood kadib jawaabta haday soo baxdo haday negative noqoto waa sidii la raba haday positive oo kansar ay noqoto mar labaad qalin lagu celinaa waxaa xasuustaa 7daas maalmood 7 sano way iga dhib badneed sababtoo haddii kansar ku soo baxdo minka ukumanka waxdana la isla qaaday anigana gabar ahaa oo wili reer ma yeelan hooyaday aabay qara la siiyaan 7daas habeen way ii taagnaayeen dugsiyada quraanka ii aadayeen ugu dambeyn negative ay ku soo baxday kansar ma qabtidaalina maalintii ugu farxadda badneed markaas alxamdulillah social media waxa ku soo galay TikTok aniga marka hore ka soo caan baxay TikTok waxa sameyn jiray familkayga aniga xaajigayga oo kale aan isduubi jirnay aan gelin jiray saasa marka hore meeshaas ka imaanay waxa uu fiican maxaa social media ka heshay waxyaabaha oo asleedahay maxaa ku geliyay social media asleedahay maahan ku fikirtay social media waxyaabaha badan oo ka helo waxa way dad jecel ka helo marka hore waxa aaminsanaa dadka marka ku soo galay TikTok ka soo caan bax maahan dadka negative oo wada badnaa jireen kadib marka ku sii jiray wiilkayga urkiisa qaaday waa xanuunsaday waxaan ogaaday run ahaantii dad jecel oo ii soo duceeyo xashka xataa cimro iyo ko joogan u taagan beedka alle inta la soo wacay iiga soo duceynay marka social media waxa ka dhaxlay dad jecel aan ka dhaxlay nese görüyorsunuz Somaliler burada yaşayan Somaliler yani. İşte son zamanlarda bu ırkçılığın çoğalmasından dolayı biraz bir takım problemler yaşandı belki. Bu özellikle dış güçler diyelim Türkiye'de yani bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de dış güçler var. Karıştırmaya çalışan. Bizim buradan bizim Somali ile olan ilişkilerimiz de payını aldı. Yani çok böyle ikamet problemleri oldu. Somalilere karşı icabında belki kötü hareket yapanlar oldu ama bunlar genel değil. Bizim Türk halkı çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Yani bizim çok eski bir tarihimiz var. Yani Somali ile. Somalilerin içerisinde çok Yemen'de karışmışlar çok. Yemen'de bizim çok büyük bir tarihimiz var. Yani neresinden baksan bir 400-500 senelik ortak tarihimiz var. Yemen'le. Öyle olduğu için bizim Somali ile çok ilişkilerimiz çok iyi. O yüzden biz Somali'yi çok seviyoruz. Okay. Su-aasha kale waxay tahay Hanabako. Marka aroosaysa abugo ma dareento waxyaabo badan ka tagtay ka tanaasushay si aad aroostay tabii way jiraan waxyaabo ka tanaasula sababtoo marka hore ilaa darajadaas ma u fikiri jirin laakiin hadda markaa fiiriyo waxyaabo badan way ka mid tahay sababtoo wadankayga ka soo dheeraaday
wadan kale aan aqoonin aan ku guursaday taas naftigeeda tanaasulay ka mid tahay bulsho kale aan aqoonin aan soo dhexgalay yacni biri ka maalin hadda markaas guursanayo waxyaabaa fahmi jirin hadda waxaa dareemay inaa fahmo yani ilmahaagii oo kale markaa wadan hadda inkastoo anaka turkiga wadan shisheeye naga ahayn laakiin qaab lahjadeed waa ku kala duwannahay soomaali iyo turki a kala dhan aniga waxaa ilmahaygii sida aan usoo koray inay igu koraan jeclaan lahaa inay wadankeega ku koraan laakiin wadan shisheeyana ma ku korayaan wadankoodii ku korayaan yani waxyaabaha aan ka tanaasulo kale wadankeyga inkastoo aanan ka tanaasulin waa tegey markaa guursada kadib cunugteeda anoo wataa tegey laakiin hadda wadankaas ugu noolaan kari awgeeda tanaasula iyada naftigeeda ka mid tahay su-aasha ugu dambeysa waxay tahay sidee u aragtaa dadka aroosiyo ajaanibta marka waa kasoo jeedi hadda sidee u aragtaa walaahi hadda saa u arkaa maadaama guursaday ajaanib ma dhihi kara ajaanib yaa la guursanin yani sababta oo fikradda aan ka aaminsanaa yani hadda markaasi kama aaminsani run ahaantii markaas ajaanib inuu xun yahay aaminsanaa jira nestiyo Çikolata diyor herhalde. Tamam vereceğim bir saniye. Tamam anneciğim. Hadi. Bitsin vereceğim. Tamam mı? Hadi. Şey seyir. Al. Mücahiden dhiwo raali noqda. Tan oo maxay su-aasha weydiisay ajaanibta marka sida aan ka aaminsanahay hadda kama aaminsani hadda waxaan ka aaminsanahay ajaanibta yani haddaad guursanaysid inkastoo ajaanibta dhan ay wada fiicneen haddii gur ajaanib ay imaanayso qofka marka hore inaad iska fiirisid dabeecadihiisa inaad baratid inaad dadkiisii baratid dhaqamadiisii markaad fahantid inaad guursatid aniga kula talin lahaa awalshii diin ma haystaa islaam ma yahay diinta islaamka maku ad adag yahay guurso ilaahay ma ka cabsana qofka markuu ilaahay ka cabsanayo adiga xuquuqdaada u fiirina laakiin qofka markuu ilaahay ka cabsanayn xuquuqdaada ma fiirinayo qofka markuu dhaho allah ka cabsana muslimna ahay markaasuu qofka xataa haddii oo kuu fiiri ajaanibnimo ninka hadduu xun yahay ilaahay aqoonin wax walbaa ka filan kartaa markay gabdhaha guursanaya hadday guursanayaan ajaanib meel walba ka yimaada yacni qofka inkastoo diinta walaal hadday kaala dhigayso qofku muslim yahay ha guursadaano qofka marka inaad dabcigiisa baratid dhaqamadiisa aad baratid ha ku guurso aan dhihi lahaa waxaa weydiisaa noloshii mustaqbalka labadeena maxaa sidee u aragtiin hadda maanta yani sidee maxaa isku rajeynaysiin dadkan daawanaya maxaa u sheegi rabtiin mustaqbalkaaga daha mustaqbal afturku waxaa lagu dhahay Gelecekte. Ay Allah geleceğimi unuttum Almazla. Geleceğim ne düşünüyorsunuz aileden bizim beraber? Yani yani Allah'tan yani hayırlı bir yani her şeyin hayırlısını istiyoruz yani gelecekte yani çocuklarımız büyüyecek inşallah yani çocuklarımız da inşallah diyorum böyle büyüyünce Somali ile Türkiye arasında daha iyi böyle ilişkileri geliştirecek böyle bir şeyler olsun istiyorum yani. İnşallah bizim Yani hayalimiz böyle hani böyle Somali ile daha geniş ilişkiler kurabileceğimiz bir şeyler yapsınlar istiyoruz yani. Biz artık yaşımız yavaş yavaş bir noktaya geldi benim de. Ama çocuklar inşallah bu konuda teşekkür ederim. Sağ ol aşkım. Ama takipçiler öyle demiyorlar. Ama boş ver takipçiler ne yapacaksın yani benim gözüm. Kelimat Somali biliyorsun yani kelimeler. Evet. Hangi kelimeler biliyorsun? Kelime Somali yani aros biliyorum. Kof biliyorum. Kof çok biliyorum esasında yani. Ama albaslan yani hadalkiisa uu ku fahmaa ma kuu jawaabi karo hadallada ugu badan hadda markaa qof la sheekeysana qof kala sheekeysana wuu fahmaa hadalladaa ku hadlaa wuu fahmaa hadallada wuu fahmaa laakiin ku celiska dhima Maya biliyorum mesela Maya en çok duyduğumuz kelimelerden maya ama mesela anne babayı konuşarken Cetlahay, Ceşay falan. Ondan sonra anne babayı konuşarken anne babayla konuşurken neyse konuşuyorsun mesela mesela Setahay, Vafenahay, İlmiha. İlmiha,
Seytihin, Yuko, selam. midda kale waxaa jirto guriga markaa xanaaqo kale qaanuun waxaa soo dejiyaa oo kale inaanan qof af turki igula hadli karin haddaa ka xanaaqo xaajigay gabadha ilmaha xataa af soomaaliya ligula hadla haddaa af soomaaliya ligula hadlayni ma lila hadlaayo ben kızdığın zaman size ne ceza veriyorum? Somalce konuşma cezası veriyor. Türkçe yasak ya. Yasaklıyorum ya. Türkiye in lagu hadlo waa ka mamnuuca guriga. Yani çok zor ama Somali hani kelime biliyorum ama cümle Tamam, kurma. vereceğim. Yani böyle bir şey gramer tabii bilmiyorum. Yani cümle şeysi biz çok değişik yani çok farklı çok zor. Hani konuşabilir miyim? Bilmiyorum ama konuşulanların yani %30 diyeyim yani. Somali gidelim de sonra konuşalım. Sodonli şey neydi? Bokolki Sodon Fehmi. Fahmi yani. Bokolki Sodon. boqolkiiba soddon waa ku hadli kartaa ashkar yani boqolkiiba xoogaa waa fahmayade Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. şey değil anaka waa mahadsantaha xabiibta adigane İlahi barakeeyo inşallah. thank you xabiibti xabiibti. aada waa mahadsantaha adigane mustaqbalkaaga daha mustaqbal af turk waxaa lagu dhahay Gelecekte. gelecek ay Allah geleceğimi unuttum albaazla qurbo markii la dhahay waa taqaanaa adiga waa soo martay qurbo dhan walba mugdiya ka tahay dabeecadaada aa iftiinkaaga dhigayso inaa markaas dadka isku dartid inaad dadka lama caamushid inaad dadka yacni aadan hore markaas oo kale aan kala dagaalin waxyaabaha qaarkood sabir badan aa looga baahan yahay qofka marka waddankaa markaa imaanaya shaqo ma kaseen shaqo weligee ma soo shaqeynin shaqada turkiga qofka yaqaano luuqada ma kaseysid maanta xaafadda haddaa kasoo baxid wadadii way adag tahay caawisaa ku celisid qof maanta inta kusoo wado shaqadii ku geynayso haddana kaawadayso guriga ku geynaysa ma lahan wadanka hooyo ma ahan qof walbaba ceeshkeedii uu ordee marka qurbaha kow marka la imaado qurbo marka tanaa la dhahaa aniga Ethiopia markaa ku noolaa eedadayaa la jooga familkiyaa la jooga iikiyaa meesha iiga horeeyeen qurbo ma soo arkin laakiin qurbaha dhabta intaa ku arkay